gudoomiyaha degmada Kamakunji Mudane Yuusuf Xasan ayaa maanta xariga ka jaray mashruuc cusub oo deeq waxbarasho ay kaga faa'iideysanayaan in ka badan 1200 oo arday oo dan yar ah oo ku nool degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi. waxaana munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen maamulayaasha dugsiyada sare ee degmadan, waalidiinta ardayda nasiibka u heshay deeqdan waxbarasho, mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya iyo waxgarad kale lagu qabtay maanta dugsiga sare ee Eastleigh High School. mashruucan oo ay maalgelintiisa iska kaashanayaan gudoomiyaha degmada Kamakunji iyo sanduuqa horumarinta dhaqaalaha ee CDF-ta ayaa waxaa la sheegay inay ku baxayso lacag gaadhaysa 4,700,000 oo shilinka Kenya. lacagtaasi oo loo kala qaybin doono in ka badan 50 dugsi sare oo waxbarashadooda ay ka sii wadan doonaan ardaydan danyarta ahi. intii ay munaasabadani socotay ayaa gudoomiyaha degmada Kamakunji Mudane Yuusuf Xasan waxa uu ku wareejiyay maamulayaasha dugsiyada sare jeegaga ardaydan lagaga bixiyay deeqahan waxbarasho iyo magacyada dugsi walba ardayda wax ka baran doonta. waxaana aad ugu mahadnaqay gudoomiyaha waalidiinta dhashay ardayda nasiibka u yeelatay deeqahan waxbarasho oo ay wajigooda ka muuqatay farxad ballaadhani. gudoomiyaha ayaa waxaan wax ka weydiinay waxyaabaha ku dhaliyay mashruucan uu daahfuray maanta iyo qaabka loo soo xulay ardaydan ku guuleysatay deeqdan waxbarasho. sidaad ogsoontihiin xaafadda Kamakunji dad masaakiin oo fara badan baa ku nool, inkastoo sidaa tahay waxaa jira caruur dadaal badan samaysay waxbarashadoodana sii wadata. waxaanan gartay haddaan ahay xildhibaanka xaafadda caruurtaas oo kaleeto inaanan laga tegin oo lacag gacan qabtaa la garab galaa oo waxbarashadooda ay dhammaystaan. caruurtu fooman bay soo wada buuxiyeen, xaafad kastaba 120 foom baa la soo siiyey. waxaa la yidhi soo qorta caruurta dhibaataysan ee u baahan in la taageero. ninka chiefka ah ama xaafadooda madaxda ah baa markaa u tegey, soo ogaaday inay dhibaataysan yihiin oo ay awoodi karaynin, soo ogaaday inay wax bartaan oo ay dadaalaan. marka ka dambeeyna soo magacaabay oo yidhi caruurtaasi waan soo ogaanay dhibka haysta, haddii la taageeri karo ha la taageero. waxaa jira dad aanan dugsiyada sare ama jaamacadaha aan wax ka dhigan laakiin tababar degdeg ah oo muddo gaaban u baahan. mashruucan scholarshipka CDF-ka dadkaas oo kale wax ma siin karo, laakiin haddii aan ogaado baahida ka jirta iyo dadka intay yihiin cadadooda waan eegi karnaa sidaan u caawin lahayn dhalinyarada noocaas oo kaleeta ah oo tababarka farsamada ama driving license ama technical u baahan in la baro. waa markii ugu horeysay mashruuc noocan oo kale ah laga hirgeliyo degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi. waxaana sidoo kale ka socda xaafadda Eastleigh dadaalo kale oo ku saabsan dhanka horumarinta xaafadan, iyadoo uu dhawaan xariga ka jaray gudoomiyuhu mashruuca nalaynta xaafadan oo markii hore inteeda badan mugdi ahaan jirtay. waxaana taa garab socda dhismayaasha wadooyinka dhexmara xaafadan Eastleigh oo intooda badan haatan gacanta lagu hayo. tan iyo intii uu qabtay xilkan Mudane Yuusuf Xasan oo isagu ah mudane Soomaaliya isla markaana laga soo doorto degmada Kamakunji oo ay hoos tagto xaafadan Eastleigh ayaa waxa muuqanaya hamaba isa soo tadaraya dadaalada dhanka horumarka ee xaafadan. Cabdiraxmaan Umar Abdi, Cabdiraxmaan Soomaali, Royal 24 TV, Nairobi, Kenya.